بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بقى معسكره وعرضنا إلى نباغ أتشهد نباغ نباغ أتشهد إنه ذاتك ورالها اسكد لأيو قلباتك مغالك اسماعي اسكد لأيو وإهلك ورالها يدي أبتيها اسكد لأيو ونباغ أتشهد وعلى أنها walaalka oo bishay waxa weeye kugu dibay ka dibay waxa weeye adduun laan ya qaradaan waxaad ka faa'iideysa ma jirto ma dhaxayso cid ka faa'iiday dagaal qof la dilay soo noqon maayo wax maanta la isku hayo oo laga hadlayo ma jirto dadba waxay leeyihiin dhul baa la isku hayaa dhulka ilaahay baa iska leh dadkana waa ku filan yahay ilaahay baa yidhi kiina nool iyo kelmite waa ku filan yahay waxa weeye qofku wuxuu milkuu leeyahay meeshuu habeenkaas ku hoynayo iyo qabrigiisa laba mitira ayuu milkuu leeyahay daaqa iyo mataqaana biyuhu dadka waa ka dhexeeyaan ilaahay ka dhexaysiiyey marka arrinta iyada ah in la isku dilo waa xaaraan wey dagaalkaasuna waa xaqdarro waxaan leenahay ilaahay ka yaaba oo dareenka iyo aqligu ha shaqeeyo kala joogsana waxaa kala fogaada ayaan leenahay labada dhinacbu waxaan leenahay dadka labada qabiila oo labada ehela oo iswaabtiga iyo isuseediga iyo iswada yaqaano iswada garanayo oo maanta dhiigoodii isbanaystay oo muddo badan kusoo noqnoqday waxa weeye waa la garan laayahay wax mataqaanaa dagaalkaas dabada ku hayo waxa wada waa la garan laayahay waxaan leenahay ilaahay ka baqa wiilasha dhalinyarada ah ee kasoo badbaaday dagaalada sakiray iyo dhibaatada kasoo badbaaday maanta oo dowladnimo iyo nabad iyo la higsanayay inaad maanta meel cidnaa ku leysaan waxa weeyo waa laba doorgeeriyaad weeyo mar iyadoo geeri iyadoo ah ay dhibaato tahay bar labaadna waa laba geeriyaad inuu maanta dagaal xaaraana oosan mataqaanaa xaqdarraha ay ku kala dhintaan arrintaas waa arrin xun weeyo arrintaas waa arrin xun adduuniya aakhira la-aan weeyo ehel la-aan weeyo walaalkaa waa seedigaa waa adeerkaa waa abtigaa waa arrintaas waa arrin xun waxaan leeyahay taas waxaan leeyahay dadka dirirayo waxaan kaloo u soo jeedinaya la hadlayaa dadka kala maxaan ku dhahaa qabiilooyinka kale ee kismaayo degan waxa weeye fidnada waxa weeye in laga hortago fidnada mataqaana sax ku tahay in la fiirsado ama la dhegaysto ama la daawado ma aha waxa weeye waa in laga hortagaa fidnadaas waa in laga hortagaa ilaahay amar buu na siiyey laba qof oo walaalaha hadday diriraan kala qabtaa la yidhi midkaa markaas waa hadashii ka gardaran kii gardaran oo garta diido waxa weye iskugu taga ayaa la yidhi ilaa uu ka ogolaaday inuu garrabo oo nabad fadhiisto kursiga fadhiisto hadduu fadhiistana dhexdaas laxdigaa la yidhi saa daraaddeed waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee degan kismaayo eedida degan ha istaageen nabadaasna ha u istaageen ninkii maanta aan nabadda ka qayb qaadan berita ayay gurigii soo gelaysaa